الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي ما هذا نسكله وجهرين حجيا قبلك أجسمها واحد أرمى بلشدة أجسمها قرشينتا ماذا حيصاص ماذا حيفنكو أما أجسمها يفنكو قدومية جود وذكر والدك صحافة رنيرة ينتقل إن شمس وعنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii farxad bay tahay oo sharaf ay tahay inaan arko 15 haween oo maanta ka qalin jabinaya iskuulka farsamada gacanta iyo fanko oo ay maal gelisay hay'adda SOS runtii waan hambaleynayaa waxaan leeyahay hambaliyo xirfadda aad barateen waa mid loo baahan yahay xaqiiqatan marka laga hadlayo xirfaddu waa anaga kaliya maanta marka laga hadlayo shaqo helista waa anaga kaliya ama waa hubka kaliya ee shaqo lagu helo waa meesha la doonayo marka qofku inuu shaqo helo nolosha ka soo bilaabo marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa maanta bartaan xirfad loo baahan yahay xirfadaas wax badan ka tari doonta gurigiina iyo qoysaskiina iyo noloshiina in badan baa laga hadlay arrimaha xirfadaha in badan baan ka hadalnay marka xirfadu waa hubka waa hanaanka waa qoriga lagu helo shaqo marka qof kasta maanta xirfad bartaa waa qof kasta maanta u dhow inuu shaqo helo oo waliba si furan oo si daahfuran ku helo marka laga hadlayo waalidka laga hadlayo barashada aqoontuna qiimo gaar ah ay leedahay anaga farxad bay noo tahay maadaama nahay wasaaradda arrimaha qoyska lagu tiriyo inaan aragno haween wax bartay marka cid kasta oo marka haweenku wax baraysa ama wax bartay waan ku bogaadin oo ay ka mid tahay hay'adda SOS iyo iskuulka farsamada gacanta iyo fanko waayo in badan baan arkayay SOS oo haween soo saartay marka hay'adda SOS waxay ka mid tahay hay'adaha inta badan mustaqbalka ifayo sameeya dhalinyarada iyo haweenka iyo caruurtaba marka waan ku bogaadinaya dadaalkooda waxaan leeyahay abaalka qaranka iyo dalka magaashateen ilaahay khayrkeeda hayna siiyo cid kasta marka abaalka gashatana waan uga mahadnaqaynaa marka laga hadlayo haweenku waxbaristoodu waxay la mid tahay qof bulshada wax baray sababtu waxa la nibro waxa weeyaan in guriga ay ka baaba'aan ama aan lagu arko wax dayac la yiraahdo ama caqabad ina marka xaalad ka soo guriyiina ka timaada xalisaan sida mashaakilaadka haweenka ama qoysaska oo soo kordhiya marka haweenka xoolo baro way ka duwan haweenka kale oo caqabad kasta marka soo foosarta haday mid nololeed tahay iyo mid qoys tahayba way xalinayaan marka haweenku inay wax bartaan waa mid qorshaha ku jirta qaranka waa mid ku jirta weeyaan hadafyada nolosha marka waxaan leeyahay wax mar walba barataan dawladdu inay garab taagan tahay waana ku faraxsanahay wasaarad ahaan oo garab istaagayna maanta xirfadda barateena waxaan leeyahay ka faa'iideysta oo inaad si wadaan waxbarashadeeda iyo wacyiga ka gaarista hadafkeeda ujeedada guud wax loo baranayo waxa weeyaan xirfad la barto in lagu shaqo tago iyo qofku yoolkiisa nololeed uu ka gaaro qofka soo markaa doonaya nolosha meel ka gaaro wuxuu sameeyaa wuxuu macno sameeyaa ama wuxuu sameeyaa meel uu ka bilaabo marka maanta dadka doonaya nolosha meel ka gaaro waxa looga baahan yahay inay macno sameystaan inay qorshe sameystaan inay sameystaan meel ay ka bilaabaan marka meeshaas waxa noqon kartaa qofku inuu xirfad la yimaado ama uu xirfad barto markaa nolosha ka bilaaban kartaa marka xirfadu waxa weeyaan waa mustaqbalkaaga waa meesha dadka wax ka gaadhaan inaad nolosha ku qurxisaan inaad nolosha ku qaabaysaan inaad hadafina ka gaadhaan waxaan leeyahay si wada oo halka ku joojina dawaarka barta xinaha barta ilaa inta awoodi kartaan aad baran kartaan aad waxa weeyaan aqoon leedihiin barta marka cid kasta marka wax baraysa haweenka wada soo dhaweynaa oo uga mahadnaqaynaa iyadoo mar walba lagu saleynayo baahida meesha taala gobolka taala degmada taala oo ku hambaleynayo marka hay'ad kasta iyo urur kasta iyo shirkad kasta oo haweenkeena xirfad siinaysa waxbarasho siinaysa waayo haweenku way ognahay qiimaha ay leeyihiin markii waalid yihiin oo ka soo yihiin oo inta badan waxyaalaha wax loo barax weeyaan baahida guriga taala in ku dabaqaan dayaca caruurta inay kaga badbaadaan oo ay caruurtoodu u shaqeeyaan marka aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa waxaan ugu talinayaa in aqoonta laga sii wadaan sidoo kalena qalab kale siiyay oo qaaliyo sida ayaan la sheegay waxa weeyaan qaar baan ognahay dadka markay inta wax la baro oo qalabna la sii qaar kood iibiyaanba laakiin waa hubkii aad ku shaqo tagi lahaydeen waa hubkii aad hadafkiina ku gaari lahaydeen marka qalabkaana inaad ilaalisaan oo aad daryeeshaan oo ciladiina wixii naga yimaadaba aan waxa weeyaan iska kaashan doonaa anaga iyo SOS iyo waxa weeyaan cid kasta marka gacanta ku haysa ama dadka farsamada yaqaanada waxaan kale aad iyo aad ugu mahadnaqayaa macallinkii wax soo baray
oo runtii macallimiintu way ka qiimo badan yihiin markay xirfad leeyihiin macallimiinta kale waxaa leeyahay macallin xirfadaad bartay iyo mid kale oo lagaa sugayaa inaad halkaa ku niyadjabin oo aan waxa halkaa ku joojin waana kor usii qaadaa xirfadda haweenka ama inaad haweenka sii xoojisaan markaa haweenka la xoojiyo waan ku bogaadinaya markaa macallinka in markaa xirfadiisa siiyey oo uu huray ilaahayna khayr ha siiyo markaa cid kastoo markaa haweenka dhiirigelinaysa xirfad siinaysa waan uga mahadnaqaynaa aad iyo aad baan idin mahadnaqayaa waxaan kusoo dhaweynayaa xogayaha gobolka masar nuux salabaan soo dhawo xogeyn shirkadda Sahal Transport Group waxay magaalada Berbera u soo kordhisay adeegii baska oo waqtiyo dheeraad ah magaalada Berbera ku soo kordhinay 7 subaxnimo ilaa iyo 5 galabnimo waxaad ka helaysaan xafiiska magaalada Berbera aanu ku leenahay shirkadda Sahal Transport Group waqtiyo dheeraad oo bixitaanka ayaad ka helaysaan 7 subaxnimo ilaa 5 galabnimo waxaan sidoo kale macaamiisha Berbera aan ogeysiinanaa inay tigitiska kursigooga ay si online ah ay uga soo goosan karaan applicationka shirkadda Sahal Transport Group taas waxay u fududeynaysaa macaamiisha si fudud inuu qofku kursigiisii iyo waqtigii uu gaarigaba uu ku helayo 7 subaxnimo ilaa 5 galabnimo si online ah ay uga dhex goosan karaan applicationka shirkadda Sahal Transport Group